marka hore waxaan salaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan. waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan walaalayaal. sida aad ogtihiinba ama aad maqasheen oo aan meel walba ka sheegnay, waxaa markii saddexaad in lagu xaraasho shidaalkii ummadda Soomaaliyeed magaalada Istanbul asbuuca soo socda. xaraashkaas waxaa sameynaya dowladda Soomaaliyeed oo uu ugu horeeyo wasiirka oo batroolka. laakiin shirkadaha xaraashka qaybta ka ah waxaa ka mid ah shirkad la yiraahdo IHS Markit, sida aad aragtaanba, iyo shirkadaas oo ay dhowaan iibsatay shirkad la yiraahdo S&P Global, lagu iibsaday 44 bilyan oo dollar. waad arag sababta shirkadan looga bixiyay yar ee la yiraahdo IHS Markit looga bixiyay ama loogu iibsaday 44 bilyan ee dollar. waxaan aaminsanahay inay qayb ka tahay xaraashka shidaal sida u sii weyn. shirkada kale ee lamaanaha la ah shirkadan la yiraahdo IHS waxaa la yiraahdaa TGS waa shirkad yar oo sheegatay inay u shaqeeyaan dad gaaraya 600 oo qofood, balse baaritaan dheer oo aan sameeyay waxaan soo ogaaday inay u shaqeeyaan 250 qofood. shirkaddu waxay xafiis ku leedahay London, xafiis kalena waxay ku leedahay New York. marka sidaas ayay u degan tahay, laakiin waa dalaalo rugcadaa ah oo aad uga beec mushtara dalaalidda shidaalada adduunka, gaar ahaan wadamada faqiirka ah oo ay ka mid yihiin wadamada faqiirka ah sida Latin America iyo Africa. waxay xooga saartay inay maaragtay shidaalkeena oo ku jiro Hobyo ee la yiraahdo blog ugu weyn ee Hobyo ku jira iyo saddexda blog ee isaga ku hareereysan inay ka qayb noqoto sidii looga iibi lahaa suuqyada caalamiga ah. shirkadan marka suuqyada caalamiga ah suuqeeda ee la yiraahdo IHS Markit oo isku sheegtay inay tahay shirkad ka caawinaysa TGS ka caawinaysa inay tahay legal and contradictory terms and conditions. waxaa la yiraahdo inay dhinaca legalka ka caawinayso waxay iskugu tagayaan magaalada Istanbul iyo wasiirka batroolka iyo 4 nin oo kale la socon ama lacagtiisu aad u badan tahay oo ay xaraashkaas qayb ka tahay. sidaas darteed inay ku heshay badeecad ama lacag lagu xaraashi doonaa ceelka weyn ee Hobyo iyo saddexda blog ee isaga ku hareereysan. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago in shidaalkii Soomaaliyeed ama shidaalkii Hobyo blogii 30 bilyan oo barmeel oo lagu iibsanayay 3 bilyan oo dollar inuu haddana suuqa yimid, oo shirkado kale markii aan ka adkaanay shirkadihii Som Oil and Gas iyo Spectrum Geo in shirkadani ay la timid TGS la imaaday shirkada la yiraahdo IHS. sidaas daraadeedna ay ayagoo wada jira ay rabaan inay u yeertaan shirkado badan oo aad u yaryar si loo xaraasho ee la yiraahdo IHS Markit oo isku sheegtay inay tahay shirkad ka caawinaysa TGS ka caawinaysa inay tahay legal and contradictory terms and conditions. waxaa la yiraahdo inay dhinaca legalka ka caawinayso waxay iskugu tagayaan magaalada Istanbul iyo wasiirka batroolka iyo 4 nin oo kale la socota sida la sheegay. waxaana meeshaas lagu xaraashi doonaa ceelka weyn ee Hobyo iyo saddexda blog ee isaga ku hareereysan. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago in shidaalkii Soomaaliyeed ama shidaalkii Hobyo blogii 30 bilyan oo barmeel oo lagu iibsanayay 3 bilyan oo dollar inuu haddana suuqa yimid,
oo shirkado kale markii aan ka adkaanay shirkadihii Som Oil and Gas iyo Spectrum Geo in shirkadani ay la timid TGS la imaaday shirkada la yiraahdo IHS sidaas daraadeedna ay ayagoo wada jira ay rabaan inay u yeertaan shirkado badan oo aad u yar si loo xaraasho. haddaba xaraashkan waa meeqo? xaraashkan waa xaraashkii 4 bilyan oo dollar. xaraashkan waa kugu celinaya waa xaraashkii 3 bilyan ee dollar. lacagtana ay tahay in lagu siiyo farmaajo iyo wasaaradda batroolka ka hor 5 May 2021. waa kugu celinaa Soomaaliyay waa xaraashkii 3 bilyan ee dollar oo lagu bixinayo lacagtaas ka hor 5 May 2021. waxaan rabaa inaan idinkii sheego in laga hortago dhacdooyinkaas noocaasa boobkaas tirada badan uu wado farmaajo iyo kooxdiisa iyo dowladda Qatar oo ayadu tiri anaa kaashka bixinayo hadhowna isaga oo rabo wato ayaa dib igu soo celi doontaan. waxaan rabaa marka inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego iyo caalamka waa markii saddexaad oo la isku dayayo in shidaalka ku jiro hobyo blog eega ah ee ku jirto 30 bilyan oo barmeel iyo 3 blog oo isaga ku hareereysan. waxaan rabaa marka inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego iyo caalamka waa markii saddexaad oo la isku dayayo in shidaalka ku jiro hobyo blog eega ah ee ku jirto 30 bilyan oo barmeel iyo 3 blog oo isaga ku hareereysan in lagu iibiyo 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. lacagtaasna lagu shubo ka hor 5 May 2021 sanadka fooda nagu soo haya. waxaan rabaa inaan digniin u diro dowlad ku sheega farmaajo iyo tuugadii 2 sano ee ugu dambeysay aan dagaalka kula jiray ee wasaaradda batroolka inaan sameyn doono wax walba oo macquul ah si loo difaaco waxa la wada leeyahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay leeyihiin oo ah shidaalka ku jira xeebaha Soomaaliya. walaalayaal si wanaagsan ayaan uga adkaanay shirkadihii ayaga ka horeeyay. kuwan ayaa nagu soo rogaal celiyay wayna joogaan. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed weydiisto iyo dhammaan intii ka gubanaysa kana danqanaysa in meel looga soo jeesto inuusan helin Maxamed Farmaajo 3 bilyan ee dollar oo lagu xaraashay shidaalkii hobyo in lagu iibiyo 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. lacagtaasna lagu shubo ka hor 5 May ku xigi doono isla maalmahaas markii xaraashka gacanta loo ku dhigaan farmaajo iyo kooxdiisa 3 bilyan oo dollar in isla markaas ay shirkadan weyn ee 40 bilyan lagu iibsaday 44 bilyan lagu iibsaday ay iyadana suuqa geeydo oo ay tiraado shidaalkii Soomaaliya ayaan gacantooda kugu hayaa ay dib u sii iibiso. waayo shirkadu ma aha shirkad wax qoda, shirkadu ma aha shirkad wax sameyda, laakiin waa shirkad ka ganacsata energy-ga. sidaas daraadeed xaraashka Soomaaliya ceelasha Soomaaliya blogyada Soomaaliya ee la xaraashayo waxay yaalaan isla saacadaas suuqa adduunka ugu weyn, taasoo macnaheedu yahay in xaraashka lacagta ay ku helaan 3 bilyan ah ay ku heli karaan 30 bilyan oo dollar, taasoo sicir bar aan sinaba caadi ahayn ku ridi karto shidaalka Soomaaliya kadibna ay noqon doonto shidaalka Soomaaliya mid aan weligiiba la qodin. sababta loo qodin laayana ay tahay shirkadahaas caalamiga ah oo maanta albaabka loogu furay inay maalinba maalin ka dambeeya ay sii xaraashtaan wixii ay xaraashka uga soo qaateen farmaajo. dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daawanaya waxaan rabaa inaan idin sheego in laga hortago dhacdadaas qaab
kasta oo macquul ah in looga hortago in shirka Istanbul ee face to face ka uusan dhicin sidii loo baaji lahaa. waa mas'uuliyad saaran qof kasta oo Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hobyo shidaalkeedu waa shidaalka ugu weyn ee ilaa hadda la helay, waa 30 bilyan oo barmeel. waxaa idin sheegayaa in aan la qodi doonin weligeed haddii aan ogolaano in shirka Istanbul lagu iibiyo isaga 3 bilyan oo dollar. walaalayaal meel aan uga soo wada jeesano. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dib u sii iibiso waayo shirkadu ma aha shirkad wax qoda, shirkadu ma aha shirkad wax samayda, laakiin waa shirkad ka ganacsata energy-ga. sidaas daraaddeed xaraashka Soomaaliya, ceelasha Soomaaliya, blogyada Soomaaliya ee la xaraashayo waxay yaalaan isla saacadaas suuqa adduunka ugu weyn, taasoo macnaheedu yahay in xaraashka lacagta ay ku helaan 3 bilyan ah ay ku heli karaan 30 bilyan oo dollar, taasoo sicir barar aan sinaba caadi ahayn ku ridi karto shidaalka Soomaaliya, kadibna ay noqon doonto shidaalka Soomaaliya mid aan weligiiba la qodin. sababta loo qodi la'yaana ay tahay shirkadahaas caalamiga ah oo maanta albaabka loogu furay inay maalinba maalin ka dambeeya ay sii xaraashtaan wixii ay xaraashka uga soo qaateen farmaajo.